kulanti waxaan wanaagsan akhyaarta aan daawanaysa ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku falaqayn doono ururka macallimiinta Soomaaliland ee loo soo gaabiyo Solto. macallimiintu markaa waxay u baahan yihiin codkooda oo midaysan oo waxtar leh oo waxba duminayn oo dhibaato lahayn xuquuqdoodina ilaashanaya xuquuqdii macallimiintana ilaalinaya qarankoodana garab taagan wasaaradda waxbarashadana la shaqeynaya oo qaybtooda ka qaadanaya ayaa runtii ururkan u taagan yahay waxaad midnimo ku heli kartaan idinkoo hal qof ah oo meel kala jooga ku heli meeshan muhiimadda weyn ee idinka doonaya waxa weeye inaad midaysnaataan wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaan anis waheshano walaalayaal wadajirno walaalayaal ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta waa mideeyaha horumaryaha iyo hiilka macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Midnimadu waa horumarkeena. ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta waa codka macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka qayb qaado dadaalada lagu horumarinayo macallinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay warqadda liisanimo maanta guddoonsiisay ururka macallimiinta dugsiyada dalka. munaasabad kooban oo lagu qabtay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo ay ka soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta madaxda ururada bulshada rayidka ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda shaqagelinta ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdilaahi Ciro. hawshii hore inoogu soo dhamaatay muddaynu soo wada shaqaynay isa soo arkaynay waxaan halkan ka hambaleynayaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska oo qayb libaax ka qaadatay sidii ururadan ay u socon lahaayeen meel marna u noqon lahaayeen aniguna waxaan u taaganahay kuna howlgallay sidii aan uga qayb qaadan lahayn horumarinta dalka xagga waxbarashada xagga shaqada iyo wax soo saarka. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee wasaaraddu u dhisayso ururada waxaan bogaadinayaa oo ka mahadnaqayaa inay ugu garab istaagtay sidii macallimiinta qaranku ay u heli lahaayeen urur ay ku bidaysan yihiin oo ay ku boobaan oo ka hadla danaha macallinka. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dadaalka faraha badan ee ay u gashay soo saaridda ururka macallimiinta. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ay u dhiirigelinayso ururadu ay tahay sidii ay bulshadu isugu xirmi lahayd. ugu dambeyntii waxa uu halkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland shahaadadii ururnimo ku guddoonsiiyay ururka macallimiinta dugsiyada dalka. ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta waa mideeyaha horumaryaha iyo hiilka macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. midnimadu waa horumarkeena. ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta waa codka macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. ka qayb qaado dadaalada lagu horumarinayo macallinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. ururka macallimiinta ee Solta oo maanta ka qabsoomaya magaalada Hargeysa farxad iyo reereyn weyn bay runtii anaga wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaan runtii noo tahay. waxaan si gaar ah u bogaadinayaa una soo dhaweynayaa ergooyinka ka socda gobolada ka baxsan gobolka Maroodijeex. si gaar ah waxaan u soo dhaweynayaa gobolka Sool oo runtii gobolka ugu fogaha marka laga hadlayo ayaan u soo dhaweynayaa. waxay ahayd in maanta anagu aan kaga dhawaaqno gobolka Awdal ururka Jamhuuriyadda ururka macallimiinta laakiin waa la nooga horeeyay laakiin waxaan anaguna halkan ka cadaynaynaa wax xoog iyo xiniin baynaan la garab taaganahay ururka macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. anigoo ku salaamaya cid walba meeqaankeeda anagu waxaanu gaar u nahay gobolka Togdheer kaasoo aanu tuhmayno inuu yahay gobolkii juhdiga ugu faraha badan la geystay inuu ururkani soo gaadho halkaas. waxaynu gudagelaynaa markaa guddoomiyaha doorashadiisii oo golaha dhexe dooran doonaan. marka waxaan codsanayaa cidda u sharaxan guddoomiyaha inay kacdo.
cismaan jaamac xasan guddoomiyaha golaha dhexe ayaa u sharaxan cid la tartamaysaa ma jirto miyay jirtaa cid la tartamaysaa waa maya mala waa dhammaantiin waa ansixiseen sidaasuu ku ansaxmay guddoomiyaha ururka soolta cismaan waxay cismaan jaamac hambalyo ayaanu leenahay soo dhawow waayahay ku-xigeenka ayaan rabaa inuu kaco magacaaga saddex cabdiwahaab faarax nuur ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka ururka soolta yaa la tartamaya ma jiro ha loo codeeyo dhammaan waa la tagay sidaasuu ku ansaxmay ansax hambalyo guddoomiye ku-xigeen soo dhawow hambalyo waay xooghayaha ururka ha istaago yaa u tartamaya istaag magacaaga hoos saddexan kor u qaad cabdilaahi ibraahim maxamed raalligaho cabdilaahi haddaan qalday magacaaga cabdilaahi ibraahim baa loo codaynaya yaa la tartamaya ma jiro yaa la tartamaya waayo ansixiya dhammaan waa la isku waafaqay sidaasuu cabdilaahi ansax ku yahay waayahay hanti dhowraa guud xogayood mahadsantay fadhiisan karta hanti dhowraa guud yaa u sharaxan waayo magacaaga yaa la sharaxan yaa la tartamaya maxamed waa hanti dhowraha guud ee ururka ha loo ansixiyo dhammaan gacanta loo taagay sidaasuu ansax ku yahay aad baanu ku hambalyeynaynaa waad soo dhawow ururka shaqo culus baa ku taal xisaabiyaha ha istaago qofka u sharaxan xisaabiyaha magacaaga khadar xuseen jaam yaa la sharaxan ceedna ha loo ansixiyo dhammaan gacantaa loo taagay sidaasuu khadar ansax ku yahay hanti dhowraha guud hambalyo macallimiinta Somalilan ee Solta waa codka macallimiinta Jamhuuriyadda Somalilan ka qayb qaado dadaalada lagu horumarinayo macalinka Jamhuuriyadda Somalilan ururka macallimiinta Somalilan ay saaka kula wada qaateen guddida hoosaadka golaha wakiilada Somalilan u qaabilsan arrimaha bulshada waxaana ay iska xog wareysteen xaaladda ururka macallimiinta Somalilan waxaana ay u soo gudbiyeen inay markaasi u baahan yihiin in loo sameeyo xeerka macallimiinta sidoo kalena qoonda loogu daro miisaaniyadda qaranka Somalilan waxaan joognaa xafiiskii guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada guddidu maanta waxa ay la kulantay ururka macallimiinta Somaliland dabeetana markaasi aan xog uga weydiino arrimaha macallimiinta iyo duruufahooda iyo xaaladaha kala duwan iyo duruufaha ay ku nool yihiin macallimiintu marka wixii xog iyo wixii su'aalaan is weydiinay waxaad ka daawan doontaan insha Allah media marka hadda waxaan sugu nimi halkan inaanu macallimiinta kala shaqeyno sidii ay u heli lahaayeen xeer iyo sharci xuquuqdooda ilaalinaya oo waxa weeye muxuu ahaa ururka macallimiinta inay xeer yeeshaan xeerkaasina uu golaha yimaado ururkuna wax badan baan la qaban doonaa wixii golaha iyaga idinkaga xidhma ee sharciyada insha Allah goloweynaana waan horgeyn doonaa hadduu alla idmo macallimiintu markaa waxay u baahan yihiin codkooga oo midaysan oo waxtar leh oo waxba duminayn codaan waxba duminayn oon dhibaato lahayn
xuquuqdoodiina ilaashanaya xuquuqdii macallimiintana ilaalinaya qarankoogana garab taagan wasaaradooda waxbarashadana la shaqaynaya oo qaybtooda ka qaadanaya ayaa runtii ururkan u taagan yahay. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaa xaqiijiyay in wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ugu dambeyn si rasmi ah u aqoonsatay ururka macallimiinta Somaliland ee Solta oo si sharci ah u matali doona macallimiinta qaranka. munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane. shirar dooran qaadanay ugu dambeyntii waxaan ogolaaday in la sameeyo ururka macallimiinta maamulkooda iyo nidaamkoodana loo ogolaado. ilaahay idinkii waxay noqon doonaan urur ka mida ururada bulshada oo wax badan soo kordhiya waxna ka qabta arrimaha iyo xuquuqda macallinka. wasaaradda waxbarashada xiriir wanaagsan la leh sidoo kale ku toosiya in la ilaaliyo xuquuqda macallimiinta.